qashin baan oo muddooyinkii u dambeeyay baa hareeyay suuqyada waaweyn ee magaalada Burco qashinkaasi oo xidhay jidad waaweyn oo halbowle u ahaa magaaladani haddaba mar aan usaaka mikrofoonka la dhex qaadnay dadweynaha iyagu ka ganacsada suuqyada waaweyn ee hadda marinka u noqotay qashinka ayaa dadweynahani waxay cabasho xoogan ka muujiyeen khasaaraha uu qashinkaasi ku hayo iyagoo intaasi ku daray in bulshaweynta reer Togdheer looga baahan yahay inay iska ilaaliyaan wax walba oo u keeni kara nadaafad darro waxaana dadweynuhu iyagoo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kaleba hadalladoodii ka mid ahaa sida tan qashinku aad iyo aad horta dawladdu ugu dadaashay xoogooda si fiican bay subax walba ugu gurtay iyadoo cagafkiina oo le maxaan ku dhahdaa iskarogooyinkii laakiin magaaladu wuu ka badan yahay hadda wax la dhammayn karaba maaha anigoo Sahraadan Axmeda xashiishku dawladdu way u dadaashaa si wanaagsan bay ugu dadaashaa hase yeeshee waxaa loo baahan yahay haddana in la sii xaquuqo la sii xala dhulka la sii wanaajiyo dacwani waxay leeyihiin qashinku mid tawa ya anagu hadlayna weeyaan wuxuu buuxiyaa falxumo nadaafad darro bilixumo waa meel istareer hadeer meesha ku yaala waa meel istareer waa magaalada bilciyeedii halkii wadadii highwayga hayb ku yaala umana fiicna dawladda hoose waxaan u sheegaynaa in ay magaalada nadaamiyaan qashinkana ka xaadhaan caafimaadkana sugaan eegaan meelaha biyaha lagu shubay meelaha laga dhaamiyana ay nadaamiyaan oo eegaan iyadoo dawladda hoose ee degmada Burco ay mar walba ugu jirto dadaal dheeri ah sidii ay u haqabtiri lahaayeen baahiyaha bulshadooda si kastaba ha ahaatee xilligan ayaa noqonaya xilli ay nadaafadda magaalada Burco ay gabaabsi ku dhowdahay isku soo wada duubo cabashadan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee lagaga cabanayo qashinkaas oo buux dhaafiyay gudaha magaalada Burco Khalid Nadaara shabakada caalamiga ee Magura News magaalada Burco.